maamulka gobolka si wada jir ah inay ugu kulmaan xarunta gobolka. ujeedada ugu weyn oo shirkan laga lahaa wuxuu ahaa kadib markii aan aragnay baahi loo qabo in guddoomiyaasha degmooyinka marka hore ay isbartaan, maadaama mas-uuliyad wadareed aan hayno oo dowlad goboleedkii koonfur galbeed oo dhan aan ku matalayno gobol baaxad leh u baahan dowlad wanaagga in la gaarsiiyo meel walba. guddoomiyaasha mas-uuliyadahaas leh inay isku yimaadaan ay dadka kale iska bartaan marka ugu horeyso muhiimadda koowaad ayay. muhiimadda labaad sidaad ka warhaysid qofka mas-uuliyad marka loo soo dhiibo wuxuu u baahan yahay mas-uuliyadahaas aqoon kabayso oo uu bulshada ku hogaamin karo. guddoomiyaashii xililkii waa loo soo dhiibay, laakiin waxaa laga maarmaan noqon weysay oo annaga aan u aragnay ka maamul gobol ahaan inay muhiim tahay guddoomiyaasha si aqoontooda iyo xirfadooda kor loogu qaado in tababar loo furo oo markay ayaga isbartaan maamulkii gobolka iyo ayagii ay hal meel isugu yimaadaan inay muhiim tahay in tababar aqoon kororsiyaa la siiyo si ay dadku u hogaaminayaan. marka ugu horeyso waxay mas-uuliyad u hayaan bulsho 30 sano iyo ka badan qalalaasa colaadeed ku soo jiray, abaaro runtii ay u dheeraayeen, amni daro haddaba ay u dheer tahay oo meel walbaba waddooyinka laga xiray, dadkii isqaqabsigoodu uu aad u fara badan yahay, duruufo fara badanna ay ku hareereysan yihiin shacabkii ay iyaga mas-uuliyaddaas u hayeen. sidee laga rabaa qofkaas inuu u hogaamiyo dadkiisa? sidee laga rabaa inuu iskugu haayo? sidee laga rabaa inuu adeegii bulshada u gaarsiiyo? sidee laga rabaa inuu waajibaadkii dawliga ay dowladda ay soo amartay ee qaybaha kala duwan lahaa inuu uga fuliyo degmadiisa ayadoo wax qalalaasa ah, dhibaato ah, broblem ah deegaankiisa aan ka jirin? waa waxyaabaha aan u aragnay inay muhiim tahay in aqoonta guddoomiyaasha kor loogu qaado. waqtiga hadda la joogo waad ka warhaysaan waa waqti aad u adag, xaaladda waddankeenu ku jiro dhinaca amniga ah inay khatar tahay. muhiimadda ugu weyn marka waxay ahayd annaga maamul gobol ahaan ay nala noqotay wasaaraddana aan la soo wadaagnay in guddoomiyaasha degmooyinka meel laisugu keeno, xirfadooda hogaamineed kor loo qaado, sidii ay dadkooda ay iskugu hayn lahaayeen ayagoo xiriir dhow la yeelanayo bulshada qaybaheeda kala duwan, hadday ahaan lahayd odayaashii, haweenkii, dhalinyaradii, ciidamadii amniga ahaa, taasoo looga fogaanayo dhammaan in wax oo dowladnimada wax u dhimaayo degmadooda ay ka soo ifbaxaan, wax khatar ku ah jiritaanka iyo xasiloonida dowlad goboleedka koonfur galbeed inay meeshaas ka soo baxaan ayadoo looga fogaanayo. waxaan rabaa mudane wasiir maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo guddoomiyaasha degmooyinkaba ay aad ugu faraxsan yihiin in maanta ayagoo nabad ah si wada jira ay kusoo gaareen xaruntii gobolka. markaan shirkaan iclaaminay guddoomiyaasha dhammaantooda aan wargelinayn inay maanta ay joogaan ay halkaan yimaadeen shalay ayagoo diyaar u ah inay ka qayb qaataan seminaarkii aqoon kororsiga ahaa lagu baranayay qaybaha kala duwan ee dowladnimada. hoggaanka suuban maxaa la hogaaminayaa? bulshaad hogaaminaysaa, bulshada isku dhaqan isku dabeecad mararka qaar ma aha. waxyaabaha lagaa rabo markaad guddoomiye tahay inaad ilaalisid waxaa koow ka ah bulshadaadi midnimadeeda inaad ilaalisaa lagaa rabo. bulshada haddaadan ilaalinin oy gacantaada ka baxdo waa dhibaato xoog leh, mas-uuliyaddaadii ma shaqaynayso oo khatar ayaad adiga isgelisay shakhsiyan. sidaas la mid ah waxaa khatar gelisay maamulkii ma ahay dowlad goboleedkii ayaad runtii khatar kala gelisay. marka sida bulshada lasugu hayn lahaa gobolkaana baahi weyn ayuu u qaba. waxaan rabaa inaan halkaan ugu mahadceliyo dhammaan saaxiibadayda guddoomiyaasha degmooyinka iyo ku-xigeenada heer gobol ee shirkan ka soo qayb galay. maalmo waxbarasho iyo aqoon kororsi ayaa noo bilaaban doona sida hadda uu noo sheegay ustaadka, annagana waxaana naga rabaa inaan ka faa'iidaysano. waxaan rabaa sidaas la mid ah inaan u mahadceliyo hay-adda USAID TIS Plus
oo runtii seminaarkan iyo imaatinka halkaan aan imaanay noo fududeeyey oo nagala shaqeeyey guddoomiyaasha inay hal meel wada yimaadaan aqoon kororsi runtii halkaan ay ka qaataan kadibna aan shir ka yeelano sidii wax looga qaban lahaa amniga abaaraha iyo wadajirka bulshadaba halkaan aan shir uga qaadan doono haddii alla idmo guud ahaan aadaan ugu faraxsanahay wasiirada oo idil inaan soo dhoweeyo guddoomiyaasha sidaasi la mid ah guddoomiye waafow oo runtii shaqo wanaagsan ka qabtay degmadana iyo soo dhoweyntiina intaba ka qayb qaatayn waa u mahad celinayaa soo dhowaada asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu